لكن سوق شيء سعيد ما بيسميه إن ولو أنا كعذر دارنا إن أصحابته يقول حرن بيتك محمد جامع إن خدك أوجي أو جاية إيو إن موبيلك أو جاجر كيسو يقول أذجيه إن واحد هذا نضاف عيدا كم إذا ماذا الدولة أو يقولون السيد وكالته قرمد أو يدو السيد وكالته قرمد رادينية taas waa waxa ka baq cabsi laga cabsi qaba in wax walba dhaco marka taas baa wax walba dhici karaan in halo ya saaxib ha darbi aniga ku jiro waa xabad birta darbiga igu dhacday haya hadda soo dhaqaaqaya saaxib gaari baan sugaya ii iimaanaya hadda soo dhaqaaqaya هيا صاحب إن شاء الله هيا إلهي إنك وحوي هلي ما يقصوا يا وكسر دقائق يا صاحب إن دقالكم السو وسي حوي سنة مرة كده سيدي هرا كدوان يضو أي إن آد إن وسي سيادة صاحبتك كسرت آجا بدو واحد ودع السادرن دوري هذا السيد هور واسكد وكبد لنتهاي هذا واحد وما ليس إن قرمتك أنتوا إسهال حبدوا أي حب ودع السيد كدون هو كنا عوين بلسكوا هذيك سنة إن دبابات كمان أنتوا دويتوا مجالات السوق علي إن أيها يجون السيد وكل مجالات حب وجير دنك كسر ضياع لما يا مدح تويدا إن حبدنا واحد أد وأذك تاي دنك مدح تويدا والدفاع كجرته إذا ماذا دولته يجون السيد وكل تو أي الدفاع كجران إذا ماذا دولته دنك مدح تويدا سيري أقورسنا كارجان حاجة ماما هلا كم نوي كدعس واحد سوق لي إذا ما قرمد سوق لي جدا قرمد باصوص على أو ضد مرية يقولون السيوك لا تأي أقليان إذا ما دولة وكوا كان قرمدك إن هذا وأركتان إذا ما قرمتك أو قلي إذا ما دولته وأكوا قاري قرمتك أو ها سلام عليكم ما جوجا واحد جوجا ماشي يقول أو ده القصة لا قاسن جوجا رضوان بن جوجا رضوان ولما أنا أرك إيدك واحد جوجا إيدك وأكوا ها ساكا أركي ساكا ها واكا وسيح دجالك مرة كده بيجرمت كوا صوب بدنيا دجالك نروح نقولنا متأذي سيح وجسنيها جرمت كده إذا كدولة ده جرمت هاني سوقليا هلو ياسر هلو إن واحد إلى جوجا إن ميت كمل إن دنيرت دقن حافظ رضوان يسوق أو إن أبارس هاك مركع آخر ساعة حافظ حافظ وصل عاي درب النتاج إن هذا مو دين حبده يكد وين تاي سيارته إن ياسر مركع هوري مقع عادي ونقول بلها بيا إن
waxaan ka mid ahay dhalinyarada degan xaafadda Duwaan saakis waxnamadii waxa ku soo kacday hadda uu maray soo saaco baxnimo xabadii waa soo bateen ciidamadii waxa uu guryaheena laga soo saaray ka waran yaasir shacabka ku nool xaafadaha miyaa laga soo saaray mise iridka ciidanku ka istaageen dabiisay yaasir ka waran shacabka ku nool xaafadda miyaa loo diiday inay ka guuraan ama ka qaxaan والله dad baa loo diiday dad waxa yiraahdo jooga dadka qaarkood waxa yiraahdo ka bax marka badanku waa baxay dadka hadda waxa kuma hayo laga soo gabagabay bahashan marka xaafadii ma u wada haysta iyo gurigii waayo xaafaddu ridwaan bay ku taalaa waa reerkayga hadda xaafadda ka joogo gurigu ma fiirnaya reerku waa tageen midna kuma waxaad u moodaa xabadda fiiqeedii in way dhacday waa qoray inuu qoriga weyn yahay baan jeclahay waa wuxuu ku soo dhacayaa laamiga laamiga xaafadda isagoo sidoo kale hubka waaweyn ay ka dhacay magaalada taasi waxay ka mid tahay hubka rasaasta la isku adeegsanayo oo ciidanku adeegsanayo wala darbiyada uu fuuqsanayo iyo meelaha jajabinayo laamiga waa kuwa kan waa laamiga sidoo kale waa aad iyo aad uga adag yahay ciidamada difaaca ku jira BSF ciidamada waxay isku dayaan kuwa dawladda in ay jabiyaan difaaca ka taagan dhanka BSF taas oo wax walba sababi kara marka insha Allah كاسة هاي وقبضت به أويفر قرية وين حبت كذا عيسو قرية وين حبت كذا عيسو قرية دربي يال isaguna sidoo kale waxa uu soo jawaabay kuwa ciidamada BSF iyagoo saay iyada oo qorigaas aad u adeegsanayo ay u adeegsanayo قرية ugu weyn oo maanta aag ka dhacaya الحبض يلا أو درندور عس شعب كونه حافظة سنة يو آد بيوم والقبان يسوق جالس حبض أي سود وجالس مرة كذا بيا إن سعيد وحكمي تاي إن لأنت كشغل سوبر ماركت كان ودو إن آجن يجو أو يشيء إن أي حلو ركب حين سوبر ماركت كان أما سي أي حرين سوبر ماركت كي آجو كولا سواء سبب النحر أو جود isagoo inta uusan bilaaban dagaalka ayaa waxa dhacday in loo sheego ama loo sii wargeliyo inay xiraan xarumaha ganacsiga oo iska dhan magaalada taas oo keentay in xabaddu ay noqoto mid aad iyo aad uga duwan sidii hore oo laba jibaar ama si ka duwan u dhacayso meesha ugu وأسكر كمية إنما دولة سووا كرمال مريا أجا وعيدا كدولة إنما كمية كان كسمين إنما يعلمها إن تاسوا إنما أيد وكوكن لو كانوا يشترون جاري قرقوا على جاري دولة أسكر قرقوا وين نسيكوا كوين كان نسيكوا كوين كان نسيكوا كوين هذا هلو ها حاجة دعدي ما استاذ قال لي واحد اللي انت صاحب فجرة حاجة حبك تطلع هيبو واحد اللي متكمل شعب المغالطة وتحبط بدو نكشش يسوي كشيء ماشي كلونكا عمر بلي بaa wax la sheegay in ay wax badan ku dhacday
marka taas baa sababtay in xabaddu shacabweynaha ay ugu tegayso guryahooda ay ka fogtahay meel ka fog meesha la isku dagaalayo dhacday yar shacab ku dhacday hadda xabad yar shacab ku taala warqad gaari kor warqad حبض الدفتر يركب waa markii labaad ay xabad agtayda ku dhacday yar ag taagan yar ii dhow ayaa xabad ku dhacday sidaa darteed wax hadda hospitaalka loo ordiyaa laba dhalinyaro ah bay xabadi ku dhacday hadeertan iyada oo ay xabadu kaga dhacday yarna lugta kaga dhacday yarna kaga dhacday kaga dhacday war aniga dhagtaysid dhagti maarigna qiiq baa karay waa nahay may waxaad u moodaa hadeer yar gaari taxi wad nigan hubka nooca waaweyn baa la isku adeegsanayaa xabaddu halo war horey baan jooga waxaan joogaa Ridwaan baan jooga hadeer bal ku soo wacaya hadeer waxa ku dhacday yar shacab laba dhalinyaro laba shacab yar taxi wata iyo yar kaleeto waa markii labaad way agtayda ku dhacdo alxamdulillah laakiin si laba qof oo shacab ay ku dhacday waa markii labaad waxaan rajaynayaa in insha Allah ay caafimaadkooda dib u Ilaahay ugu soo celiyo inta ku soo dhaawacmatay inta ku dhaawacmatay waxaad moodaa in shacab weynaha ay xabadda ugu tagayso meel ka duwan meelaha ay joogaan way ugu tagaysaa xabaddu iyadu waa bahalkii waa ugu tagaysaa dadka meel ka duwan ay ka sii darayso rasaastii gurmad la isula soo socdo xabadda u soo socoto si ka duwan sidoo hore magaalada ay isla soo galayaan ciidamadu iyadoo saasay tahay ay sameynayaan waxaa samaysaa xagga ditore taas waxaa dhacday in hadeer ditore xagga xabaddu way soo dhowaatay sidoo hore way ka duwan tahay dhanka waxay soo aaday dhanka madaxtooye qoriga xabadda weyn ka dhacaysa qoriga qoriga xabadda ku dhacaysa agtiisaan joogaa live baa kaga jira page-kayga qoriga weyn xabaddu ka dhacayso ayaa wuxuu taagan yahay dhanka BS taagaas shiinow page-kayga waxa kaga jira live kaga jira qoriga xabaddu kaaga dhacayso waa u dhowaay meel u dhow baa joogaa haye